بسم الله. Dida kale qofka markuu uu rabo Allahumma salli ala Muhammad example harta sideedaba bahashan barashay u baahan tahay qofka inuu iska socdo lama rabo. Hadda qofka inuu wuxuu rabaa example oo kala inuu wuxuu rabaa lacagtiisan hadda meesha ku jirto kala qaabkii uu u xiran lahaa la rabaa. Hadda aniga balansigeeyo kala lama arka haddii marka uu qofka rabo inuu sidaas yeesho hadda qof aan arkayay ku hayay lacagta kore ima soo baxayso. Example haddaan ku noqono meeshii kale midkaan hadda aan ku jiro waa browserkii bayda caadiga ahayd bayda caadiga ahayd qofka markuu aadayo example waa kan markaan soo kicino qofka hadda mathalan ani tayda kor way ka muuqataa markii inaan qariyaan rabaa inteen taga waa marka okay ana dooka koray ka muuqataa soo jeedid 98 kaas koray ka muuqataa marka inaan qariyaan rabaa halkaas saddex dhibcood ku dhufanaa waxaan tagayaa profile-ka halkaasaan tagayaa waa taqaaniin badankiin marka hide balance yaan lay markaan dhaha way tagaysaa marka qofka maxaa laga rabaa marka qofaa laga yaabaa hadda gabadhaasoo kale meeshaasay tagtay uu ka xirmay example oo kale checklistigaanay tagtay minute-kay ku dhufanaysaa meeshaanay haddaa weyto marka aniga iyo arkaysa ayada marka kor lacag uma saarno wuu ka qarsoonyi marka mar haddaa weyto inta imaaday baan tusay waxay ayada marka hide baa ka saarnaa korkaas lacagta ku qorneed kuma qorneen example marka meeshaan ku noqonaynaa hadda Soomaa profile-kii aan ku noqonaynaa meeshaanaan soo furaynaa marka hide balance uu ku qoran yahay waan soo furaynaa markaan soo furno meeshii haddana ku noqonaynaa gabadha marka kan marka soo ma jeedid 98 meeshii ku qoran tahay oo uma qorno hadawtuna uma qorneen markaan xirnay marka meeshaasaa ka qaldan gabadha laga soo furo marka insha allahu mayna checklistigaana ninkii u baahan number 6 ha iska akhriyo number 6 si fiican ha isaga akhriyo hadduu rabo xataa ku beddesho Soomaaligii intuu fasiro adiga shirkadda heshiisa la gashay heshiiskan waxyaabo waxaa jiro oo ka mamnuuc inaad maaragtay ay ka tahay inaad meelo qaar aad tagtid ay mamnuuc yihiin waxyaabo badan meesha ku qoran marka iska ilaali adigoo ma aragtay meelo oo khatar ah restriction-kan on transfer inay micnaha kugu dhib noqonaysa hadhow security xagga security-ga waxyaabo aad la bixi karin arrimo badan ayaa jiro insha allahu tacaala gudoomiyahanaga oo GCV-ga mayre ayaa si fiican insha allahu tacaala usoo sharixi doono waa ka warqabeena ayadana waa ka warsugeynaa marka bahasha waxay u baahan tahay isticmaal fuul ah dadka qaarkiis markii number 9 loo furo meeshaan waa inay dib u celiyaan labadan oo midna dadka qaar 100-kaasi u joogtaa example kale dadka 100-kaasi qaar u joogtaa qaarna 3 sano u joogtaa waxaa soo dhan 25 midgii midna 2 weekgii haday u badato 6 biloodgii 1 year waa geysan kartaa 6 bilood waa geysan kartaa wax weyn ma aha marka dadka qaarkiis in waxaan ay fahmaan aad u wanaagsan inay bahashaan mar walba ay meel walba ay ka galaan wanaagsan hadda increase transferable balance-gan oo kale qofka hadduu taabto ani inkastoo hadda dad badan aysan igu xirneen
dadka memberska u diraya ma aragtay oo pendingka ah ayuu fariin u dirayaa 24 saac. meeshaan pending member ay ku qoran tahay. ani hadda dadkay ku jiro badankood waa maray KYC, marka wax uu hadda iga soo bixiya malaha. dadka qaarkiis meeshaan way blue caadi way soo way meeshaan way u daaran tahay dadka qaarkiis. dadka anigoo kalena haddaan waxba lagu lahayn waa iska caadi. marka dadka KYC-ga ayuu u cilaaminahayaa inaa mar walba daarata laga rabaa. white paperka waa kan qofka inuu isku akhriya aad u wanaagsan, uu fasirto tokenkan wuxuu ka hadlayo. insha allah waxaasoo dhan waa noola soo wadaa tartiib tartiibaan insha allahu tacaala isu bareen.